dhacdo naxdin leh wiilkan dhalinyarada ah oo u dhashay wadanka Shiinaha guriga gabadhii uu jeclaa ayaa dabka kacay wuxuuna isku dayay inuu dabka ka badbaadiyo jecelkiisa isku daygaas kadib uu ku guuleystay inuu badbaadiyo jecelkiisa nasiib xumo jirkiisa oo dhan ayaa gubtay balse waxay ugu darnayd markii gabadhii uu daraadeed u gubtay una waayay humnihiisa jirkiisa ugu muhiimsanaa ay tiri kuma baahni waayo foolhumo ayaad noqotay oo jirkayga quruxda badnaa ayaa isbedelay halkaas ayna uga dhaqaaqday dhacdadan ayaa hadalhayn ka dhalisay barax bulshada dunida oo dhan wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo humnihiisa u dhameystirnaayeen gabdhaha ma sidaas u xun waayo wiilkan jecelkiisa daraadeed ayuu saan u noqday waxa la rabay inay sidaas ku aqbasho fikradaadana la wadaag